عيش مقتها jirkeedii isbedelay dad badan oo xarka mataqaana ii soo qoraayo maxaa waaye sida waxay u ekaatay qofka weyn saan waaye maxaa ula joogtaa maxaa qof de aniga markaa yani aniga igu soo sabartay heer intaan baxo waxaa soo shaqaysto u keena cunto qof yani heerkaas anoo awoodin qof igu soo sabartay ma uga tegi karaa waa cayilantaa iyo waa caatista what's cayile caato cayil it's not big deal wax weyn oo laga fakara ma mugtahay waa wax xal leh mugtahay laakiin waxa aniga waxaa watay waxaa la igugu sabra waxaanan xal lahayn mugtahay gabdhaha rag uga tagaan ma fahant wallahi idriso ninkan arkoosid waxaan arki mataqaana anoo walacay oo baahan oo saakay ilaa galab anoo afkayga cunto saarin maalin u baxay arnuu soo xalinay uu baxay ma fahanti guri asxaab aa joognay markaas markuu imaado wuxuu arkay sambuus wax lagu cunay warqad oo naga waday gurigiisa uu nageeyay elboorka ee aad deganeen siyo oo waxa waay muddo jidka joognay asxaabteena le wallahi markii dambana kartideena la isku markii oo qof maanta Soomaali ee mareen inay jirtaan ma bayla aan ba anaga noo soo maanta waa qof maanta Soomaali ee mareen inay jirtaan ma bayla aan ba anaga noo soo seexana weyna gaari aan wallahi rafaad adduunyo waa soo marnay ma fahantii maanta waa يعني ina badar cunno iska dhaaf aday badarka hadaa weyn taas macna ma bana lahayn balaak waxa ka fikiri jirnay lacag ma haysano meelaad joogna male guri ma qabno ma haysano markaas asxaab la joognaa inta jiifanayna markaas waxa ka fikirayna caaw markii intuu waaga noogu bariyo habeen damban inta seexanaysiin habeen dambe intee la aadi doonaa wareer iyo mushkilad adan asxaab kala raadi guri kala tag qof duruuf ku rabto malada moogtaa cid walba marka u tagtid waxa waa laba maalin qofka wajiga ku bedelana rafaad isilac marbacid u taga wallahi waa soo rafaadnay badar ma ka fikiri jirnay waxaan ka fikiri jirnay intee caabur madaxa intee dhulka dhigaysin caawinta seexan doontiin marmar waxa iska leenahay baawurta gaarigana dhex seexana asxaabta baawurta noo keentay caabal sa ku waabrisana wallahi rafaad adduun hadda waan xaamilo uurkoodana leedahay anna markaas uurkoodana la aad iyo aad waliba u xanuunsaday waa xataa dadku waa yaqaanin waaga saa u ekaaday bismillaah waa caadi waxaan laf iyo maqaara noqday ma fahanteen marka nolosha anaga aan soo marnay nolol asxaab horta ilaahay khayr ha siiyo anaga waxa jireen waagaas waxba ma tiri jirin hanti ma jirin laakiin garab istaag iyo qosol idriso halaas ibka amareenin hal maalin murug ma jiri jirin 24 hours asku qosol jirnay waxa kaliya ku dadaali jirnay cadayga iyo catarka ku dadaali jirnay ma fahanti catarka dharka waa guriga tagno wallahi waxa jiri jirtay mara ma aragti inta xirna asxaabana moogtahay mara waxa ku gurin jirnay gabsaar inta qaban waxa soo gadanay gabsaar iyo macaan lacagana soo gashay maalin faanti wali anaga ma ahan gabar saaxiibteen oo teamkana la socdo kamid lacagta keentay waxa waa baxna maxaa dhan lacagtan maxaa ku sameeynaa marka waxaan dhahnay waxaan sameynaynaa wiilashana afar macwiis oo soo gadno anagana gabsaar iyo diracyaal soo gadano walba ciidaha u tagayno yani meelaha sayxana bisle aa ka helnay dharigaan ku dhibin ma fahanti waxaa sameyn jirna marka dharkii mara xiranaa wadanaa cid kasta u dagoonaa ha intaan siinta saxarabna qolkaan ay digiliya waa nin walba meeshiisu saxana dharkeena yaa furaneena geedi guurayna subax waaga bariyaa cidii jaaga furka taaganaysa anaga isla markaa waa ka carreynaa waa istaabanayna dad baahan waa dana kibirsanayaan waxaan fiiriyo meesha mujid bahdila ka jira ka tagna meeshan meel kale noo raadiya wala waxa wareey heblo inta aadna cawada hadda fahmay noloshiina hadda fahmay wali waxaan isleeyahay jiray aniga markii hore waxaan maleyn jiray farxii inay maaqan Canada ka yimaad meel wiir mas'uul wali dad badan aan saaminsan dad badan waxay aaminsan farxiyo she's from qurbaha marka wali aan waxa haystay dadkan iyagoo ladan ba isguursadeen waxa isleeyahay jiray isay isku fahmay inta badan dadka marka ladan ma yani wali fiir ani familkeyga waxa waay waxay dayax qalada laga aaminsanaa fanaan waa dareemi kartaa markii ma fanaan gabar uu dhawaaraba dayax ciideed way diideen faanto uu imaaday waa laga diiday ma yaalahay waxa way waxay dhaadeen nin fanaan si u guusanay naag maseer badan aad tahay saana tahay inta waa macquul ma baahan nin fanaan ma bisayn kartiin buu iga diiday hooy ma faantay marka aan markaas dayra ahaa xiligaas ma faantay ma xal buuqa labada famil dhankooda ka jiray anaga marka waxa ay dad iska rafaadsan ma faantay waa iska dhibtoone almuhiim waxa waay muddo jidka joognay asxaabteena le wallahi markii dambana kartideena la isku markii dambe waxa waay waa fikirnay wiil ilaahay khayr ha siiyo oo walaalkeen ah oo elboorka deganaa waagaas intuu naga yaabay oo wuxuu dhahay soo baxa
uu naga waday markuu naga waday gurigiisuuna geeyey elboorka eed aad deganeen wuxuu yiri dayaxo waa shaqaysaa mahano haa ee lacagta marka maxaa qaldan anaga walaalo problemsanahay talana ma heeno maba ogin ba lacag meel ka baxday dhibkan haysta anaga dhalinyaro yar waxaana dal soo deeri familkooda isku dhacsan yihiin lacag hadii aan soo gasho ma maareyn karno qof mas'uul oo naga weyn maanta wana caawinayo ma jirto saas miyaha waa inta jooga dayaxa marka lacagtu shaqeynay guriga kireysanay guriga hodan urkeeda markaas 7 bilood amray asaan oo kirey xitaa guriga saadameenaga guriga kireysanay oo nusboos markaas aan ugu filnaa 3 qol guriga iska degnay nolosheen markaas sidii kiskis isku soo furfurtay oo laakiin hodan urkeeda markay urkeega gashay ilaa 7 bilood nolol raaxa li bijirin ma ka shakisaa mise yani mar walba kalsooni baad siisaa wallahi telefoonka ma aragtay hadda kala hadlaayo ma aragtay ka kacsan انت عوان ضيح ولي تويتر كيسا كعسن انستغرام كيسا كعسن فيسبوك كيسا تيك توك كيسا هل ميل ابو ودا شيكيسنا انا قدام بعوانادين هل ميل ku jiraan faant keegi klikiis uu ku jira anna keegi waa ku jira marka hadii fiiri fariinta inta ka qoro intana way ku soo dhaceen iyadoo fiirinin fariinteeda mataqaana waxa la hadlayo dhan hadda dhinacaan intee fiirisay kala socon kartaa it's not big deal ما wax ma aragtay yaani waxyaalaha ma aragtay qof waxa jira mugtaa wax adi shaki xitaa ka galaayo ما هذا ضيق يعني وان دليل بس نولبا يعني انا نوشي في وافو اركين فانتي وان gabadhan jeclaata dayax laga yaabaa gabadhii marka waxay taagan tahay aniga farxiye inuu xaaskiisa ogaa laakiin maxaa aniga farxiye kale aniga calafkeyga cunaya farxiye calafkeeda cunaysa waxaa laga yaabaa marka inay qoraan u soo qorto ama si uun iyadoo markii isaga markii hore asxaab caadi ah inay ka hesho ay tiraahdo abu waa kaa helay لعل القرآن نوع هذا أرتك ورن ما يعني ما بيزبدل لأنه ما يزبدل هاي سامين ما يقول سامي واي ما أركتي أنا قفي وحواي كلسوني حد كذا كبحسن ما أركتي وحد كبحسن أيقو جرتو واي أنت سنة أصلا نولنا هاي ضيح ولقي عليه مرة هناك هي بالمحيط هناك تسنة محيطة ما فهمتي سفيان سومالي ذا أيام في جرت فرحي صبر إن ضيح للقلي دي سام واسكتها ما فهمتي qofka ma aragtay horta markastaba qiimo aad raadis ama waxa dhahday ii samee waxa ma tareeso qofkaaga waxa fiican inuu asi ku garto ma fahanti qiimahaaga inuu asi garto ya dayaxsaa qiimeyga gartay asaa martaqaana dadnimadeeda gartay yaani maba ahanba waxyaalo hadii xitaa ee dhacdo ma aragtay in case fariin caadi soo dhacday xitaa dayax ma laga yaabo in qofso waxay ila mid ahaanay in loo soo qoray saytaan fiican tahay ma fahanti gabdho waad u jeedaa ninkaan dayaxa waxa u qortaan والله أنا متقنا فيري هرت waxa meesha yaalo waxa meesha yaalo waxaan taqaanaa dirso horta qofka ma aragto marka isaga laga fahmo ma aragto isaga ma aragtay uu daydayma badan yahay uu fiirin ba ani gabadhiga hor imaado mutaqana hay baay fiican tahay xaaladda ka war ama inaan taageernimo u ixtiraamayo telefoonka igu jirto ma soo baxday because cidlo waa kaligeeda guriga joogtaan baan waa soo carar weeyaan faan gabadhii marka ma taqaa isla istaagnabo 1 second ma shaqa ka wada hadlo waa may ma sawir isla galona oo taageeramaya waa may wax kale inta oo gaar ka mooda hadana waa iska soo cararaw marka qofka marka isaga xitaa laga fahmo mataqaana in la dhaxgali karo in reerkiisa la dumin karo in aniga teeda kale horta mataqaana wax xagaas dhan markii laga soo aramo mataqaana farxiye gabar ila soo rafaadii la soo dhibto dad nolosheeda wax badan ii soo qabata abaala aanan halkan ku soo koobi karin ii soo gasho waa marka mataqaana qofkii rabay inuu farxiyo asagoo xumeena agteeda inuu soo maro qof ani itoogta oo heestaaba iska daawo wax kale marka xagga la iska dhifo markiiba arkaba qof u dan leh inuu farxiyo asoo raba inuu xumeeyo inuu anigi soo aado macquul ma aha ma fahanti inuu anigi itoogta moodaa ma fahanti waayo xiriirkan meel fiican u gaarin faad taada kale ma aragtay idriso abaha yani waxa jira ma aragtay qofkaaga laftirkiisa talada markaa farta ka saartid at sometimes waxa dhacdo moogtahay reeraha inta badan buuq waxa u keenay dagaalka taagan iyo qaylada taagan moogtahay si fiican ani waxa aaminsanaa ninka ragga wuxuu asi garaysta bisa dhici karaan sax ama iswaal ama dhulku isku garaac waxa doonta sameey ma fahanti qofkan haduu maanta ugu tala galo inuu kaliga ku haysto kaliga ku ixtiraamo asay ka falantaa aadiya taas abeenahay hadii maanta uu garaystan inuu ku qiyaamo ama wax kale uu sameeyana uu sameeyna bini aadam waadi ma ogaan kartid sax si fiican
ani ahaanna markaa dayax intaas sano isla noolnaha way badan tahay intaasoo sano wax maanta xumaana ama qalad reerkeena oo naag ku saabsan weligeed ma soo dhexgelin ما شاء الله ما شاء الله qofkana saansaantiisa ka dareemay mar kastana waxaa fiican qofkaaga inaa aaminto yacni way jiraan rag hadda la aamini karin laakiin waxa waaye mar kasta waxaa qurux badan qofka markaa laftirkiisa aa kalsooni siisid aa dhahdid maanta aa isku dhiibtado maanta aa madaxa aa yacni gacanta ag saarta wax walbo asaga aa waxa waaye kuu samaynaayo wax kuu qalmo والله ما شاء الله والله فرحيو wax kastana fiirina gabar kastana ninkeeda sababta keliya mataqaanaa ninka uu waxa noo dhiman waxa waaye ninkeeda sababta keliya mataqaanaa ninka uu gaar u noqon karo uu keligaa kuu ixtiraami karo yacni sida hadda alxamdulilah hadda annaga nahay iyo famili kale hore ah way jiraan mafahanti laakiin waxa keliya sababa waxay tahay horta nin rag ah markaa ugu samirtid xaalad adag ma aragto oo dhibaato miiran oo waxna ka qaban karin maanta waxaa dhici karto baahi in lasugu sabray dhibaatooyin kale waxa familka yacni iska dhis iska taagma ma aan moogtahay صح in mataqaanaa xaalad kastoo adag markuu galo inaad garabkiis taagan tahay markii maanta xataa guuldaro uu arka inaad dhaadid waxba ma halaabin okay aa tahay ma fahantay waxaa jiraan waxyaalo qofka uu adi xitaa darajo fiican kugu siinaayo marka ninkan wuu ku qabaa bis ma aynaan u laqantid yacni waa inaad garabkiisa istaagtaa oo maanta wax walbo aa ku garab istaagtid ma fahantay ما شاء الله والله هذيك قبضوا مقلة هذه كقاضنا يا وانا قبضوا والله نحن أنا مش سنة والله نحن مجرو والله نحن مجرو كلمة أركته وحول بس سمر الدلقاد ما أركته خفك كلنا نقولنا هدي ما أنت فيري ما أنت إسكده خفنا نقول وذاك يسينو رر إذا حجور إذا أحمر إسكده ما أنت قف إسلامت هذا ما أنت إسحان ما بالا أوجش تبروك وجذا ما فهمتي صح تاسع بيني idriso aan ku sheega fiiri hadda adiga bisa aan su-aashan ku weydiina ma fahanta maanta ma aragta adoo iska daa qowmiyad oo dhan ma aragta ayadoo kaa soo horjeedo oo la leeyahay idris waa sidaan idris waa xun yahay idris waa halkan mid kii kaa hor imaadaba dee uu niyadda kaa dilaya kii kaa hor imaada uu kuceynaya kii kaa hor imaadaba yacni mataqaana inuu wax xun yacni hoos kuu dhiga mooye uusan ku ixtiraamaynin yacni adigana dhibaatooyin badan oo dhan kasta oo mataqaana maanta markii dhan lacageed la fiiriyo aad loos tahay markii la fiiriyo dhan everywhere markii la fiiriyo markaa loos tahay markay gabar iyadoo mataqaanaa inta ku garab taagantahay ay ku dhehayso waxaasoo dhan wax kama jiraan ay farxad ku siinayso ay qalbiga kuu dhisayso ay ku leedahay dee waxaasoo dhan maanta adduunyadaasoo dhan ma farxadaada ma murugtaada ujeeda waa may anaa murugtaada ujeeda ee farxadaada waa inay timaadaa qofku dhehayso oo farxadaada keenayso oo noloshaasoo dhan iyo xumaantaas iyo ummadaasoo dhan oo kaasoo horjeeda oo dhan intay indhaha kaa tirtay iyada bis farxadeeda ku tusayso kuna barayso sida aanan qof kale loogu caroonin sida qof kalenta aan loogu xanaaqin sida qof kalenta aan loogu murugoonin looguna oynin oo dee nolosha dhabta ah bis ay tahay adiga iyo qofka aad la nooshahay noloshaada dee qofka muhiimka ku ah bis inta kale ummadna ay hadday qayliyaan iyo haddii ay xumaadaan iyo hadday wanaagsanaadaanba aysan waxba kaa bedeli karin ma fahanti marka abaalla waxaa jira mataqaana waxyaaba dhaxalgala mataqaana qofka sidaas kuu soo gal maanta adoo nafsiyan adoo is aaminsan noloshaada inaad luusgarowday qofkii gacanta ku qabtay ee kor kuu qaaday maskaxdaada ilaa mogtahay qofkii ibnaadinka maskaxda ku socda fiiri maskaxdaada dhistay noloshaada xafiday hantidaada ilaalisay wax walba kuu samaysay yacni reerkaaga kula weynaysay maanta nin ragoo dee sharaf leh kaa dhigta oo gurigeeda kaa soo jisay caqligeeda maskaxdeeda aqoonteeda kugu bixisay berrito marka aad dee ladnaato ama noloshan laga baxo rafaadka markii laga baxo raaxadii markii lasoo gaaro faktaab ma dhihi kartaa waa may soo maa waxa dhan oo meesha yaal waa intaas ma fahanta because aniga abaal weyn ii gashay waana jecla dawaab xaaskayga ma fahantay oo iyadoo maxaa la eeba waajib tahay haddana mataqaana waxyaaba mataqaana oo waxay ii raacisay oo labada qof inay waxa qof kale hadduu kuu sameeya aa lugaha ka dhunka lahayd ma fahantay oo ibni aadan abaal kuu galo ma fahantay marka dee that's it والله idris waa qeer abaayo horta way adag tahay qof aad isfahantaan nolosha inaad hesho qof nasiib la u baahan inta badan markaad aragto dadka Soomaalida ragga Soomaaliyeed in yar mooy inta kale aabayaasha markaa eegto kale xaas laba xaas saddex xaas way soo wada guursadeen marka inta badan waxaa keenaysa ninka ragga ah markuu helo gabar fahanta dabeecad markii la yiraahdo dhan kasta nolosha dhan kasta ka qancisa way ku adkaanaysaa maba ku fikirayaba xiriir kale inuu sameeyo ama naag kale guursado marka والله هذا فيري مركا أنا هذا دلاي دقيسو قبل إنه قوليس مركا هذا مركا ضيح عن قبل يسوع دلاي ما عرفتي إن هبين كاس التاجين هاي تاريخ وكل يوم درنا أوك وفولنا مفهمتي
maalinkii foosha ugu bilaabatay markii maalinka foosha ugu bilaabatay wuxuu dhahay caawa dhalashadeeda waa maxaa sameeyaa keeg yar ma iska sameysanaa sisuu dhahay waxaan dhahay may iska dhaafaa keeg ma sameynayna ma fahantay ase marka waxaa ka dhigay inay waxba jirin wallahi anoo foole ogahay habeenkii maalinkii dhan xaflad yar u sameynaya aad diyaarinay xanuunkii uu yahay laakiin ma dareensiinin ma fahantay صح habeenkaas keega aa jaraayo fooltii ugu darneeda ihiisay nus saac kadib way dhashay waa fiiri waa marka keega aa jarnay waa soo baxnay intaa soo socday gaari kasoo dagaa bisa aa joog waa dhal isla markii ما شاء الله إلهي وكوفي asagana ma oga mugu sheegin ma fahantay markii guriga la imaada u sheegay waa la dhalooyaa markii la waa maskaxda dhinac wareertay marka nolosha ma aragtay yani qofka waxa waaye meel dheer qofka laga keeno ma fahantay ها nimanka Soomaalida waxa la mugtaa way qalbi xun yihiin waa adag yihiin nin Soomaali wax ka jilicsan ma jiro قبلها غلط تسلم يا ليدها يا فرحي ها of course gabdhaha qalad kale laano fiiri gabdhaha waxay qalad ku leeyihiin waxa waaye ani tan kaliyo aaminsana waxay tahay nin in la kasban karo nin Soomaali inuu yahay ninka adduunka ugu naxariista badan ugu qalbiga jilicsan إله فرحي عمل نوبدي aamin markaas waaye nimanka laftirkooda ma aragtay wallahi waa kala yihiin horta dayax ma aragtay abaal yaqaan hadaa ma qashid asaga waaye ما شاء الله fiir haddaan miisaan badan ay ugu ziyaado waa ciile gabdha qaar wallahi dad badan mararka qaar tala weydiistaan mogtahay waa la yaabaa dayax wiil oo saaxiibkeena jiro walaalkeena mar kasto jiimka bilaan u dhaa mogtahay hay markaas wuxuu leeyahay dayaxa ku haleynooy waayo dayax maalin kasta wuxuu ku dhahaa xays wax ma ka qaldan caadi taa waa ila qurxantahay ninkan uu ku haleynooy jiimka bilaan ma fahantay waxyaabaha dayax hadana oo gaar ah ugu sii jeclaanayo oo mataqaanaa la yaabka ilaa waxay tahay dayax maalinta dhexdeera ilaa maalinta dhexdeeda weynaada sema waay sidii qadariya ka daran wiilkaas jikina galo wii ogolaa hadda markuu ilaa mataqaanaa jika ma geli kartid wallahi inaan been sheegin oo bilaa jika saas ma geli wuxuu dhahaa maya waa dhici kartaa hadda miisaanka uu culus yahay waxa qabanin fariiso ma fahantay العاود يا سيدي حرايا هذا لهذا مركي دمرك كلهان هذا لهذا نوع او كلا خاصه مركي كجيرادو ما والله runta sheega والله been sheega dhageyso ما والله run waa fiiri diris niman hadda waxaa jira ma ogtahay gabdhaha fiir gabadha marba xaalad la kulmay ma ogtahay horta qurux soo keeyeen wali xaalado adag aan maray xanuunsada waa jirtay oo ma taqaanaa isbitaal aa galay muddo guriga xataa joog jir wali jar leeg wadaa muddo xanuunsanaa maalinna ma dareemin inaan xanuunsanahay dhibiq yar xataa inaa wax yar xataa qaw ma dareemi jirin marna wuu soo shaqay jiray marna cunto ii karin jiray anoo xanuunsan markaas ma socon karin ma fahantay anyways waxa waaye nolosha dhan naxariis waa guurka dhan naxariis waa guurka haddii la isku fahmo adduunyada ilaahay guurka wax ka fiican ma jirto oo la isku fahansan yahay na qaylinayso erey badan inaad gabar xunna ma jirto wiil xunna ma jiro isfahankii la maqan ya may gabdhaha sidaa sheegto waa gabdhaha raggooda haddii u naxariistaan may ixtiraam ani dayax waxaa siiya dayax ixtiraamka ani aasiyo waxa waaye dayax madaxa korkiisa amarkiisa jiro amarkiisa jooga dayax dartiisa aniga been ma sheegaayo waxaa ku dhahay haddii aan ku dhaho rag milyaneer ee mataqaanaa soo arkaayo oo arkooyo mujadaa wallahi inaa been sheegin asagoo arkaaya baloog saari jiray ma fahantay yacni kalsooni raganimo oo waxaa sii maaragtay ugu dambaysaa in asaga adduunyada jiro asaga joogo ma fahantay الله يعزك الله يعزك أنا ما أنت وحبرش هيك وصري سجارة دني أود ما أنت مدرنسي أنا ما أنت هنا وحول بخبرنا يسوى شقينا عادي نقول شو إيقون ده يوحو أسي اسمه يكون ولا ما فهمت يعني درجة وصري أساسية وهذا بدنا أركع قبلها يعني هذا دونين كود رومان توحن هسمين نقول كم هذا حدا أنيجا وحيالها هذا حني نقدر حتى هاي إنه يهاي ما أنت فرحية haddii la farxiyo maanta ya amarkeeda la farxiyo maanta waxaasay ku dhigtay ka fujin karo dayax biswa asaa laba asaa saddex asaa afar thank you very much ma fahantay ninkaaga hadda ixtiraam fiican walaa fiiri arin gabdhaha Soomaalida waa arkay laba dhinac waa amina isduleeyaan yacni xaajiga cuntadiisa xaajiga hebelkiisa waa inay dhahaan ama kaleeto waa gabdhaha inay madax adag yihiin intaas guur ma ku dhismo ma fahantay nolosha qabowga naxariista badan رحمة الله ما أعرف تاس بسرعة كل اسم كرا والله نين رجنا أدوين كل بني الله توجع عليها والله نين هدي ما أنت اللي بنت أدوين تال أسيق فرت أكثر تقول مدحويني جورجا مدحويني نلاش عادي واي نين كاس بس واي هذا إسكالي
وارن فير سؤال كويدينا إدرسوا فيريا gabadhan fiir iyadoo wax baratay oo jaamiciyad ah oo maasha Allah maanta xirfado aanan halkan lagu soo koobi karin leh haddana ma aragtay yani gabar libis shalay markaas u guursanay gabar libis badan gabar reer magaal ah gabar maxaa la sheeg nolosha magaalada fahansan ah ee haddana waxay iga qaadatay in aniga haddii aan albaabka ka baxana ay gurigeeda joogayso ilaa meeshan ugu tago kursiga ugu tago ugu soo noqdo ma fahanti diris wax ka ayaab ku sheegaa dhageyso ايه باي ninkan marka ismehersanay ma fahanti waa ismeher xadna horta ko moogtaa waa ismeheris ani asi hoos ismehersanay tobankii marka ismehersanay marka waxa waa maalmahaas telefoon liiga xad telefoonkeyga telefoon weynaa wata waa liiga xad tuuga iga dafta habeen markay sida telefoon niclaa wadan jiray marka waa dareemi kartaa maho marka guur ko guursid waxba asxaaba leeyahay jirto asxaaba iska leedahay nolosha ma fahanti wallahi simkaarkeyga waa damiyay soo dansanaa hooyaday waxa ka soo qaaday daraday xasaan u baahday simkaarkaas waa u baahanahay inoo soo qaad ma fahanti simkaarka waagaas u tuuray aan telefoon dhan wadan jirin whatsapp-ka dayax leeyaysan jiray hadda maalmahan dambe mid oo ma aragtay familka yani kan dayax maadaama jaam uu noqday si qofkii muhiim ah kan kala hadalno ama ma aragtay oo nagala soo hadlo u sameeysanay intaan sana isqabno waxa simkaar wataa 2 bil 2 bil ma dhanta horta 2 bil wallahi yani asxaabteyda hor wallahi ina been ku sheegeen wallahi asxaab waxa jirto oo war badan asxaab waxa jirto hadal munaasib ku hadleen oo iska hadlaay ma fahantii wallahi bloga saara meesha ku arko iska blogareeya yani si qalbigiisa hal mar xitaa wax yar qaldan oo maxal dhahay oo u fahmin ma fahantii والله هرت waxba isla soo marteen marka qalbiga qofka marka ay fiiri gabdhaha ana waa arkay mugtahay waxay sameeyaan asxaab wiilala jir karaan wax kale waa la iskala hadlaa caadi ay agtooda ka yahay laakiin ma dareemayaan qofkooda inuu dhibi karo ma fahantii ani bataatan wax dhankeyga ka socday wiligiis ma arkin Instagram-keyga hadda qofka igala soo hadlo oo afaare dheer ama saaxiib balaay hore ahay waa iska block gareeyaba automatically xoog ma isku leenahay waa ani marka sareerka hadda ku jira muhiim ah ma fahantii انت فاهم لاي قبلها الصوماليه انت بس اللي فاهم لاي noloshooda waxba kama xumaan lahayn weligay intaan qabnana weligay ana aroos gaar mu aadin ani aroos hada ma aamina ani idinta asaga la israacna weligeedii aleed aniga ina gacanta ka qabto oo wada mooyay weligeed inta ee nooleed aroos inta laga soo wacay maba aadinbo weligeedii aleed baan for marka nolosha ma arkin in la iska warqabka iyo isku xirnaashaha wuxuu keenaa guurka oo ziyaado oo bataana aniga asi had sanad guuradeeni oo lixaad waa ma fahantii 6 sano oo goor kadib 7 sano oo bilaabanaysa hadana waxa u muuqanaa dad had isguursaday ma aaminay dan muhiim inuu aadayo ama shaqo inuu aadayo inta gal guriga jooga ana marar qaar waxa dhacay kaale guriga ku xajisay ya ما شاء الله ما شاء الله فرحيه in aad magaalada muqdisho ku noolaataan ma doonaysaan mise waxaad jeclaan lahaydeen wadan kamid ah Europe ama America ka hada idin soo gasho inaad u guurtaan oo aad wadanka soo booqataan mar uun mise inaad abadin ku noolaataan doonaysaan muqdisho والله هرتا أنا قد مقدشة كل ما هو إنت أنا كل سوء كان هذا ميل جار أو إسلام هاي دلحيس ولا جيا بعد دلحيس أنا بحنو بلوينير صلا بنو لكن يعني نولول يسلق مركل لو حمر رجعنا هاي اسطنبول ولي ما تكتين waxaan doonaa insha Allah waxaan jecelahay January 2023 اسطنبول mar imaada اسطنبول meel ka qurux badan لكن يعني نولول يسلق مركل لو حمر رجعنا هاي اسطنبول ولي ما تكتين waxaan doonaa insha Allah waxaan jecelahay January 2023 اسطنبول mar imaada اسطنبول meel ka qurux badan ka nolol raqiisan ka jawi macaan ma aanan ku arkin اسطنبول ما أنت ميل دهان جعلنا أن كداونا تيريجا أنت ميل ده أو تركي كتلا هالكسر بين الرقيق ما شاء الله ويان وليبا الصومالي أنت بدل هذا وحس ويان قربها المها أول نيروبي أنت بدل جيد جريد ضدك قربها دقن مرايك يورو هذا وحال السماء قرية حتى رقيس بسكين تركيا قرية لاقتي أما لقيت جارتي المية ماشي حكبرنا يعني ماشي سكجوان يوروب ودو هاي أفريقيا دي أنا ودو هاي مركا ما شاء الله ما أنا هذا يفرحيه وابحنا إن شاء الله دولير هذا السنة كان ويحكي أنت هذا السنة كلام مركل غريب دولير ما شاء الله أنت الصومالية المقدسة عاصمة الصومال أي تاي ما كل رتين وكسر بربارتين أي تاي
ما أنا قاعد أنا عاديا بنرش أنا وقرشنا وقد جيها waxaa laga yaabaa sanad kadib waxaan sameyn lahayn wadadii inaan already yani hadii nafta aan qabnabo way noo sii tilmaamantaa ma fahanto